Jasiiradda Lamu yaa yeelan doona. Lamu waa magaalo yar oo ku taala jasiiradda Lamu, taasi oo qayb ka ah jasiiradda quruxda badan ee Lamu. Lamu waxay 341 kiiloomitir u jirtaa magaalada Mombasa ee dalka Kenya, oo ay kaga beegan tahay dhinaca bari waqooyi. Waxaa la aasaasay hilaadii 370kii. Waxa u dhowdahay magaalada Mokawe. Lamu waa jasiirad aad u qurux badan oo kumanaan qof ayaa sanadkii u dalxiis taga. Dhaqaale badan ayaa ka soo gala sanadkii dalka Kenya. Waxay leedahay xeeb qurux badan oo degan, goobo taariikhi ah, jawi aad u macaan, dalxiisayaashuna ay jecel yihiin daafaha adduunkana uga yimaadaan kuwa Afrikaanka iyo kuwa gudaha dalka Kenyamana ay ku qaataan waqti qurux badan. Lamu waqti xaadirkan waxaa xukuma dalka Kenya. Haddaba Lamu waxay ku beegan tahay xuduud badeedka ay Soomaaliya iyo Kenya isku haystaan ee dacwadoodu imika ka socoto maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee magaalada Hague ee dalka Netherlands. weliba waxay soo galaysaa sida laga arkayo khariirada dhinaca Soomaaliya. Haddii badda loo xukumo Soomaaliya ayaa yeelan doonta jasiiradan caalamiga ee quruxda badan. Dadka reer Kenya ayaa maanta ku tawaawacay waxaan lumin doonaa jasiiradda Lamu oo ah meel nagu qaali ah haddii Soomaaliya loo xukumo badda. Dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa ayaa lagu soo gabagabayn doonaa dhageysigeeda u dambeeyay magaalada Hague ee dalka Netherlands maalinta berri ah haddii alla idmo. Maxkamadda ayaa go'aan ka soo saari doonta. Go'aankuna hadduu noqdo in Soomaaliya ay leedahay badda la isku haysto, Lamu waxay raaci doontaa dhinaca Soomaaliya. Lamu oo in badan ay xukumaysa Kenya ma noqon doontaa meel ka mid ah Soomaaliya? Waa su'aalaha la isweydiinayo. Dadweynaha Soomaalida ayaa maanta iyaguna ka qayb qaadanayay inay ku faraxsan yihiin inay Lamu ka mid noqoto Soomaaliya oo Kenya ka soo goodo, halka dadka Kenyana sayna soo sheegnay iyaguna ay ku tawaawacayeen inay lumin doonaan meel qaali ah oo qurux badan oo iyagana ugu fadhida mahmiyad weyn. Qadar Yuusuf Omar, Telefishinka Caalamiga Gobonimo.